السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا منضنيال كسر دواد السنان تي في هذا عدى مدح بنان ما أنت تاريخه هاي سبتي كوبي لواتكي نوفمبر لبدي يكون لواتن وحان برنامج سياسة نوجو مرتيا سياسي وين مهدي إبراهيم جود أو قدومي كحسب ARD إن شاء الله وحن جعلها إن إسكابلا برنامج كنا تفضل كسر دو مهدي إبراهيم ضدك سلان تكذب وحن جعلها إن ضدك أدوش كثير إن يرو مارتا أدسيسو تاريخ النلايات كسياسة دا أدوسو مرتي كسر دو مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما سنتي وردوا هاي سنان تي في aad baan aad u mahadsantihiin barnaamijkan aad iga qayb gelisaan maanta taariikhdeeda haddaan ka soo sheekeeyo intan waa soo yar gaabin waxa weeyaan markii u horreysay horta dee anu dhulka amaan joogin markii goormeeda la qaatay arday dugsiga dhexe aan ahaa oo faransiiska joogayay dalka waxaan ku laabmay markii inkastoo fasaxiyo tegay waxaan ku laabmay ugu dambayn markii jaamacaddeeda aan dhameeyey muddo markaan joogay dhowr sana waxaan dareemay meesha inuu ma garatay arrimo dhibaato badan jirto waxaa ku noqday 780kii markay tahay 9-adii waa kii buuq bilaabmay 9-kiiba waxaan idhi wallaahi dagaalkani waa weeyaan dagaal xaq ku dirira dagaal ma garatay kale ma aha kol haddii aanan dalku dastuur lahayn haddii cadaaladii ay xumaatay haddii waxan ay jirto kol haddii favoritism waxa la jiro anu de nin shaqo fiican iska haystaan ahaa iska nolol aad u fiican oo aad uga sareysa kuwa saaxiibaday habase ahaatee aad baan uga gedgishay dabadeetana siyaasadda baan galay ilaa maantana aan ku jiraa mucaaradna nooc kasta waan soo arkay min 9 ilaa hadda dee weli halgankaa baan ku jiraa isbedeleed ee ummaddu u baahan tahay iyo horumarka ay ka raadinayso waqtigaa waxaan maleeyaa inay malaha ka nolol fiicneed ba ma garatay nolosha maanta ummadda iyo bulshadeenu ku jirto iyo dalkeenu inkastoo soo maray burbur iyo dhibaato iyo dilba haddana waxaan u maleeyaa hawshu weli ma yara isbedel weyn buu dalku u baahan yahay dib u habeyn buu u baahan yahay marka waa taa taariikh nololeedkaygu ururka fiyood baa kasoo barjaanhaan jiray sheekh alla yarxam markuu dhintay ilaa saxiixii nabadeed ee axmediin lala saxeexay dabadeetana de waxaan ahaa waa ka vice presidentka ururka ARD loo bixiyey oon isku waafaqnay waa kaa ilaa maantana dee halkiin buu halkankan kaga jiraa isbedelna dee waan sugaynaa raggu rajo iyo meel ku gaadhaa baan idhi rajadii iyo samirkii iyo iimaanka iyaa maantana hor socda oo ilaahay maan la kaashanay dagaalkan islaaman u wadaynaa waa kaa waa soo gaabiyey وما سنتها مادي حقين كشغالين جراتي مادي ما يصيران كشغالين جراتي مجبوط ما كان بدي علمي soo bartay jaamacadda ka baxay banking aan bilaabay BNP Bari ba ka shaqeeyay 2 sano dabadeedna waxaan tagay Djibouti oo waxa la Djibouti looga baahayay kaadaro reer Djibouti dalkaygii oo aabayna hooyayna ku noqdeen doonayay oo sidii waajibkii faran ay ahayd dalkii mara ku noqday bisayga kaadar ka ahaa 4 sano dabadeed markaan arkay isbedelkii meesha oo cadaan uu sii joogaan isbedel baa inay ka dhacayn waa ka tagay madax banaani baan yaan baxay waxaan furtay kabinet ma garatay commissaire compte kaaba ku shaqeynayay oo dawladda iyo ma garatay attribution ma garatay para public ba ka madax banaana waka okay وما سنتها مادي مادي waxaan siyaasadda intaan ku horin waxaan jecel lahaa inaan tagay bal aad wax nooga sheegto dagaalkan imika socda
eritrea iyo etoobiya ka dhex qarxay etoobiya dhexdeedu ka dhex dilaacay bal wax nooga sheeg sida maaragtay wuxuu jiro annaka cawaaqib wuxuu naga yeelin doono ininku ARD ahaan inikuna maxaad ka soo saartay wax qaraara horta waxa weeyaan dadkan isdilayay waa dad ma garatay horta walaalaheena weeyaan taariikhana isku taariikh ba midnihin inagu de gobonnimadeennii waxaan qaadanay muddo imika 43 sano ka dambaysay dalkan Ethiopia waa dal ma garatay lamaba gumaysanba waa dal boqortooyo ku dul fadhiday bulshada inteeda badan yaan sheegayaa Ethiopia ku nool ama Soomaali noqotaya ama Oromo noqotaya ama Afar noqotaya ama kuwa kale jinsiyad kale waxa inagu in soo gaadhin baa jiro xagga suudka shisha gala ee Kenya xuduudeeda marka waxa weeyaan sida abu dalkaasi ahaa boqortooyada ba ka jirtay oo weliba sheegay jirtay inay wada maamusho ilaa dhulalkeena ay iska leedahay iyadu ama se aatee dagaalkan maanta ka jira ee Ethiopia ka dhacay salwan iyo ku yeelan doona hadii nabad degdeg la gaari waayo deegaanka aan deganahay East Africa oo dhan sababtoo ah waa ummad badan bulsho badan weeyaan 110 milyan inaguna itaalkeennuna dama badna waad ogtahay intaan nahayba Djibouti hadii la soo koobo waa milyan wax ka yar waana waxa weeyaan wadnaheegii weeyaan magaalada Djibouti oo xagaabay ma garatay shidaalkeedii iyo wax walba iyo xoolaheegii kala soo degtay Ethiopia dhibaato dhaqaale iyo dhibaato ma garatay degmo way leedahay tu bulshada way yeelani hadii ma garatay dalka istaag way taasi waa ta la isku haystay maxay tahay ta la isku haystay waxa isbedelkii talisyadii hore soo jiray markii Mengistu uu tagay TPLF tu meesho qabsatay TPLF tu waa Tigraygaasi waa dad boqortooyo waligood baahan jiray amxara hortood marka dabadeeto de waana dad gaala in la isku sheego ma muslim baan inagu nahay muslimku ku badan Ethiopia waligood power ma yeelan laakiin waa dad gaala u badan qadaas yihiin intaasoo sano way haysteen ee waa la socotaan dhibaatada uu keenay taliskii Meles Zenawi oo isla sidii boqortooyadu u dhaqmay hortooba dadkiisu ugu la dhaqmi jireen oo malaha kale bulshooyinka kale community-yada kale marka waxa weeyaan maanta isbedelkaasi waa ku halis iyo keenay ee Abiy meesha Ahmed meesha ku yimiday oo isagoo kamid ahaa markii hore TPLF-ta laakiin markuu arkay awoodiisa inta leegtahay meesha uu qabsaday haba qabsadee iyagu waxay dhahan waan goosanaynaa bay leeyihiin taa weeyaan dhibaatadu inay hadday go'aanada Ethiopia waa dal federaala nin walba deegaan buu iska leeyahay qabiil walba deegaan buu iska leeyahay community walba deegaan baa iska leedahay burburkii bay yaa kolka dhacay Ethiopia iyo waad garanaysaa reer walbana hub haystaa Soomaalina noqotay way hubeysan yihiin marka hadii xarigaas tusbax gooyo kale noqonaysa ma taageeray anigu Abiy ma garatay xuquuqul insaanka isagoo maanta Nobel Prize waxay ahayd inuu warilada yiraahdo dadweynaha uu yiraahdo wax la qabta sida la qabta laakiin nasiib daradu waxa weeyaan ma garatay iyaguna qoladii kale iyaguna anaga power ka dhaxalule iyaguna taagan nasiib dara meesha jirta ilaahay naga badbaadiyaan amiin ka xisbi ahaan ARD xisbi waddaniyaatiin oo xisbi siyaasadda waddanka wax kula tiin waxaan rajin ka dhacaya ininku maxaad ka soo saarteen wax baaqa dadku in la dareensiyo wax si wax u socdaan garaadka siyaasadeed wuxuu kusinayaa ama mucaarad ama muxaafid ba ahaw inaad ma garatay xaq dhowr kula dhaqato dalalka jaarkaaga inaad ku faraxdana maaha dhibaatooyinka ma garatay duxdiisa jira Soomaal garan inaad ma garatay la ficilsanto qolo ama qolo kalena maaha waxa weeyaan ujeedadu waxa weeyaan jiiraan kulley waad ahaan doontaan ku kastoo yimaada meesha saaxiib waad ahaan doontaan xiriidho waaweyn bay naga dhaxeeya anagu waxaan aaminsanahay ARD hadaan waxaan aaminsanahay in ma garatay horta peace lagu dhameeyo ma garatay nabad lagu dhameeyo dagaalka meesha jira dhibaatadeeda oo leedahay dalalka idilay ma garatay jaarka faqiirka sida imka kale Suudaan oo si cabaadaysa oo la filayo in ma garatay inta bishan dhamaanba ilaa bisha dambe dhexdeeda ay gaaraan 200,000 oo qaxooti Soomaad garan marka iyadoo halkaasna Eritrea TPLF waanu aanay oo waxay la socotaa taliskan Abiy taasina dhibaatadeeda kale leedahay madaxweyne Eritrea kuwaad garanaysaan weeyaan inuu gabanayn uu hadduu ku soo jeesto dhibaatada ay si ballaaranayso
marka waxa weeyaan taasina inagana salbay nagula wayna taaban kartaa waayo waagii hore soo wada galeen Itoobiya ku jabeen waad ogtahay in ma garatay ciidamada Faransiisku ay u gurmadeen inoo gurmadeen oo xagga geestiiriya ka saaran cala sabix marka waxa weeyaan in ilaahay de nama bado taasoo kale haddana waxa weeyaan annagu haddaan ayrdeenay waxa weeyaan war wax nabada lagu dhameeyo ku oran maayo abiya saxa laakiin wixii nabad lagu dhameeyo yaa ma garatay horta haboon ma garatay taaba ma garato muhiima waayo dalkeena uu taabanaya dagaalkaas hadduu sii socdo dhibaato dhaqaalaha uu keenaya dhibaato umadeedna uu keenaya inta badan marka anagu nabad yaan doonaynaa inay ma garatay labadaas isaystay ay nabad ku dhameeyaan sida degmooyinka kaleba nabad loogu dhameyn karo in loo dhameeyo wax walba xalka Itoobiya ما سنتهي مادي سياسيين باتين حزبيين بات كميت هاي دلك قيبة مقن ودميرة maxaad ugu heli lahayn maqnaanshaha dumeera dumeera maqnaashahayga waan ka hadalnay mar hore waqtigii hore waan ka hadalnay nabad ma garatay way ka wada way isku arkeen Ismaaciil Cumar waa kan imikada kaga hadlay jariidan uu soo saaray Jean Afrique nabad haddii la doonayo Ismaaciil Cumar nabadda isaga haya isaga maanta madaxweynihii dalkan ahay Sacuudiga isku arkeen way isku gacan sayreen Itoobiya Eritrea oo iska dilay 100,000 oo ummada wax ka badan oo ciidana way ka heshiiyeen anna waxaan u maleeyaa haddii volunteegu jiro ama si garaadku siinayo madaxweynaha Djibouti aan u maleeyaa madaxweynaha Djibouti jariidan wuxuu ku leeyahay ninka waa la heshiin lahay waa nin calool xubuu iga yidhi Melese waqtigii uu noolaa anna waxaan ogahay inuu Ismaaciil Cumar maanta calool xun yahay ku sheegaya oo isagu kuwa la dhashay halkaas ee dalka mucaaridka isagoo lugto hoosteeda geliya mooyaane cunahana qabto shaqo ka eriya caruurtooda ka eriya ma garatay ehelkood ka eriya dumarkooda ka eriya oo maanan arkay marka calool xumada uu sheegay haddii uu isagoo calool fiican yahay adduun uu yeerin lahaa ama dalka jaarkaaba uu la heshin lahaa hadduu doonayo maxaabiisteena la haysto sheegayo waa la soo sii dayn lahaa arrimahaasi waxay ku dhaman lahayn si cad oo cadaalada yuuna been isku sheegin 40 beyse meesha taali inay ka cilinayaan iyo moodin dagaalo ama ka horjoogi karaan dadaalo soo garmaysid marka waxa weeyaan war ummadiiba ku hoos dhimatay soo maad garan ciidamadiiba ku hoos dhintay askartiiba halkaa taagan habeen iyo dharaar oo ma garatay dhaqaalahoogina xun yahay waxa weeyaan hadduu doonayo kolba ninkii meesha awoodda leh haya ma garatay nabadana haya dagaalna haya marka annagu waan ka hadalnay waan cambaaraynay Eritrea dhulkayga soo gasho ma ogolin waan ka dagaalamaynaa laakiin ninkani dagaal hadduu Ismaaciil Cumar u diyaar yahayna de si cad uguma diyaar ah isaga nabadii ay hal sameeyay nabadda waan fahmay naadi eedu laakiin haddan bayso isaguba ha bixiyo amba sababteeda hala imikana suu u wada qalad ahaataba laakiin intii wadannimo annak xaq miyo naga saarin ininku inaad arrinta hadalka aad digin oo sida aad imika ay sheegayso shicibka aad u soo bandhigtiin oo meelaha wax ka go'an garabkiina ininku tahay waddanku annakoo matala inaad hawsha intaa leeg inaad ninkuna qabatiin waad qabteen soo maaha oo mucaaradkow anagu ma nu gabin laakiin awood baanan u haysan dawladaha kale ma garatay dimuqraadiga mucaaradkooda iyo muxaafidkooda meel bay ka wada jeestaan way wada tashadaan madaxweynayaashu waxa uu yeedhaan ragga ay tartamayaan mucaaradka oo yidhaan war wadani baan nahay dhibaato halkaa bay ka soo beertay maanta Mareykanka iyo Kanada iyo ma garatay Faransiiska iyo waxa uu yeedhaan mucaaradkooda yidhaan dhibaato halkaa ay taala waan inla tashanayaa arin maxaa maanta in hor yaala maxaa sideen uga baxnaa sideen u yaalaa hal maxaad keenaysin waxa weeyaan marka madaxweynaha ayay u taalaa marka inuu qaraarka ay ku wada heshiiyeen la qaato sidoo badan soo garan maysid si aan la iskaga hor imaano wadannimo loo wada jeesto ka iyagu nooma haystaba inaan mucaaradnahay inuu mucaarad jiraba uu diidan yahay in ummad lala tashadaba ay jirto uu diidan yahay ma doonayo marka maxaa anaga awoodan haynaa oo maanta ugu tagi karnaa anagu Eritrea oo kula heshiin karnaa nabad oo loo karnaa mucaaradka maxaabiista inoo soo sii daaya haddaan taa hayno mar yeeli lahayn waaniga kuu sheegaya
ninka u bareeray inay situationku sidaas ka ahaato xalku sidaa ahaado waa isaga weeyaan ee dhibaateeyey ciidamada halkaa joogaya ma garatay habeenaya dharaar kuleelkaa kuma garatay kabaasita ee xuduudka ilaalinaya ee biilkooduna yar yahay weliba reeroogiina intaa ka maqan marka nin la cid la tashada ma waa kalidii taliye waa kalidii tashade waan fahmay mahdi laakiin isagu waa sidaad ku sheegayso kaba dhigba dhabarku nii jeesi laakiin wuxuu wax isagu leeyahay maaha waa wax waddanka ka maqan waa wax dalka oo qayb maqan tahay ininka mas-uuliyaddii niga saaraa marnaba taa nigama qaadayso inaad dadka wacyi gelisiin oo dadka wadannimada aad tustiin inay waddanka qayb maqan tahay inaad ininku intaabaa nacam lilaahi waad gabteen waxba ma nagobin baanu malaya annagu waxaanu nidhi wax dowladda Eritrea wan cabaare dhulkayga inay soo celiso waa la doonaya waxaan doonaynaa inay kuu sheegay si cad kugu sheegay askartii la soo celiyo waxa weeyaan laakiin ninkii nabadda la seexanaya yidhi Sacuudiga u dhoofay tegey ya waa aniga kuu sheegay ku yidhi magaratay Ethiopia iyo Eritrea intaas Columbus-ka dileen oo ummada oo ciidama markaa gacantiisa nabadda Eritrea uu la sameeyay ku jirta hadduu ujeeddo cad leeyahay uu doonayo nabad oo dalkeennana doonayo in intii laga qaatay la soo celiyo ciidamadeenii la sheegayay waa la haystaa maxaabiista waa la soo celin karo isagay gacantiisa ku jirtaa annagu awood ahaan hadal mooyaane wax awooda oon annagu ku haynoon isbeleysay isaysafa weerkii intoo lagu togan aan leenahay war dalka iyaga annagaa mataleen sii dadka iyagii ama xuduudkeena noo soo celi maanta wax suuragala maaha waad iskaga ku tahayna keligii taliyahaabaa ma garatay meesha iska haysta situationkaana ogol kana faa'iidaysanaya ummadana ku jaahwareerinaya wuxuu ku dhammayn karo 10 cisho dhexdood insha allah ma rajaynaysaa inaad waxyaabaha khasaaraha oo dawladdu ay geysatay inay dal ay bixiye ay tahay mashruucyadana ma ku daraysiin waxyaabaha ku eedaynaysiin sharciyada wax badan baa lagu dari wax badan baa laga bedelay reform constitutional buu baahan yahay dalku iyo reform institutional labadaba isbedel siyaasadeed buu baahan yahay dalku iyo dib u habeyn dawladeed buu baahan yahay waayo dalkan waa la gabay dhibaatada maanta jirtay ma jirteen markii gobonimo la qaatay waa laga gudbi lahaa haddii la doonayo in la sameeyo kooridoorka Itoobiya tagaya waagaaba uu jiray dawgaasi uu jiray waxa jirtay dekada boorku uu jiray marka waxa weeyaan isaga iyo siyaasadiisii adeerkiina kula wadabay dib u dhigay oo maanta la noqo dhigay wax borosheeyo wada jadiida Itoobiya hore maraysa waxa la sii ogaa 50 sano horteed Itoobiya inay dekada ka maarmeen waa la sii ogaa ilaa waagii la dhisay Ethiopia inuu baahan boorka ay u baahan ay maanta ka dhaasan jirteena inuu ballaaran karo waa la iska sii ogaa qarniyada marka waxa weeyaan wax jadiida annaga yalla nooga dhigin dhaqaalahan laakiin yaa qaata midhiisi halkay maraan xaggay tageen maxaa loo deymiyay dalka haddii ma garatay wixii manaafacaadkii ka soo baxay ummadda la gaarsiinay annagu marka waxay u baahan tahay dalkani in dib loo wada habeeyo dastuur ahaan maamul dawlad ahaan dhaqaale ahaan ummadda waxeedii la gaarsiiyo regionyadana ma garatay economiga loo qaybiyo dhaqaalaha soo gala inteeda badan caasimadan baa lagu wada bixiyaa laakiin la gaarsiiyo degmooyinka gudaha oo borojeeyo fiyaabla loo sameeyo wax hore soconaya taasi waa kuwaanu haynaa programkeediina waan dhignay waan geli doonaa mahdi waxaan jecelahay inaan ogaano mowqifka ARD iyo waxay xisbiyada kale kaga duwan tahay horta objective quraan wada leenahay anagu meel baan ka wada jeednaa laakiin waxaana kala duwayay waxa weeye program politiciana kala duwayay program politician ne walba program buu leeyahay anu sidaan u maleeyo ani program politiciga waxaad ka arkay ARD-da waxaad ka arkaysaa website-keeda halkan kaaga wada talin kari maayo isbedeladaan ku sheegaya dastuurka ma garatay institutionyada justice-ka ma garatay la kala qaado waxaan oo dhan dawladdu inuu madaxweynuhu ahaado chef de gouvernement ma aha dawladdu waa inay ka goonaato prime minister hoos timaado oo dawlad ma garatay prime ministerkaas hadduu cajab waayo baarlamaanku ridi karo waxyaalahaas ku dhan baa jira ninkii dawladdu shaqeeya ama wasiir noqdaya ama director noqdaya ee xoolaha ummadda cuna maxkamado gaar ah loo sameynaya waa laga daba tagayaa madaxweynaha sidaas leeg waxa weeyaan waxaas ku dhamaan ku kala duwanahay inteeda badan waxa weeyaan laakiinse objective quraan ku wada soconaa waana wax laga wada hadli karo oo la oran karo anigu halkan sidaan ma ka jecelahay
sidan baan isku raaci karnaa laakiin waxa ma garatay difference of profile waxa la dhahnaa wax adag oo ku kala duwannahay ma aha horta dictatorkan in la horta la iska dhaqaajiyo laakiin inta la dhaqaajin waa in la sameeyo wax lagu heshiiyo wax noo yaalaan haddii kale sidaa Soomaaliya noqonaynaa waan burburaynaa meel ka soo noqonna heli mayno dal yarna waa nahay itaalka inta lagna ma liino waka mahdi waxaad musharax baad u ahayd doorashada xisbiga ARD صح taa wax nooga taabo المشرح له ما هين waxa weyn horta ARD ilaa maalintii aan abuurnay waxa soo maray saddex madax Allah u naxariistay labadii nin hore way dhinteen Axmed Diini Axmed ya oo markaa vice presidentkiisu oo bedelay oo Axmed Yusuf Xumed oo presidentkiisu yeesantana markii dambe noqday dabadeetana waa ka geeriyooday geeridii dabadeedna waxaan qabtay Aadan Maxamed Cabdu ilaa maantana haya markaa waxa weeyaan labadii hore de intayna congress soo gaarin haduu wadku qaaday iminka congresskiiba yaa ma garatay Axmed Aadan wuu nool yahay laba jeclida ilaahay ma garatay wuxuu qoraa ilaahay caafimaadkaas iyo si hore labadii madaxweyne hore geeridaaba naga qaaday Allah u naxariisto naxariisna ka waraabiyo maanta se waxa weeyaan de tartan baa jira partiyaduna waa inay noqdaan ma garatay democratic intayna ma garatay dawladda ka doonin oo ma garatay isbedel uu ka dhaco haddii isaga loogu celiyana de waa la sii wada dadaali haddii ma garatay aan ka helana waa la sii wada shaqeyno wax ma garatay dhibaato anagu ma aragno sidii aan wada shaqeynay partiyahan waan wada shaqeynaa tartanna waanu wadnaa waa congressku marka covid-kana dhamaado haddii ilaahay yiraahdo ilaahay na gaarsiiyo iyaan de ma garatay congressna la qaban doonaa ummadaha ma garatay albaabada laga furo ee la yiraahdo waa shiri kartaan mahdi haddaad ku guulaysato iminka ilaahay kuu guulaysiiyo ood noqoto barisaanka ARD-ga maxay macno bixinaysaa reer Djibouti maxay macno u bixinaysaa macno dheeraada macno dheeraada waxay u bixinaysaa de horta kow waxa weeyaan in transition ku dhici karo alternance ku dhici karo oo dalkana uu ka dhici karo baartiyada dhexdooda ka dhici karo taas horta waxa weeyaan sawir weyn oo fiican weeyaan oo ma garatay waayo aragnimo siyaasadeedna anaga nagu oo ina ku tusno ummadda in ma garatay kursi laadku lagu adkaaday inayna faa'iido lahayn laakiin loo baahan yahay dhiig jadiida qof jadiida waji kale jadiida soo ma garan taasi oo kugu darayo anigu ma garatay aniga aadan waa wada shaqayn jirnay presidentkeega iminka ARD-da markii aan fiyoodka ahaa isaga vice president ahaana president baa ka ahaa markaa waxa weeyaan muddada ka tarbandisad ilaa 2001 sidaa baan wada shaqaynaynay waanu anagoo sidaa wada soconaan ARD-na samaynay maantana isaga presidenta waana si fiican u wadaa dadaalkiisina wuu wadaa intuu hayeen wuu wadaa waajibkiisana uu ka soo baxayaa wuuna ku ilaa maanta uu ku jiraa marka anu waxaan ku sheegayaa in isbedelkaasi waji jadiida uu keenayo uu dhiig jadiida keenayo maamul jadiida uu keenayo dhaqdhaqaaq jadiida uu keenayo Soomaad garan ummaduna ay fahmi karto kaba soo qaad ba ay oran karaan wardashaday ururkan canfar baa loo haystay waa kan ninkan ba ku jiray maanta la tartamaya ururkan ba kobcino weynayno alternance ay jirto waxaasoo waxyaalaha faktoradaas oo dhan baa ku jira meesha arunta maadi goor mu dhacaya kongareygu xaguna ku dhacaya kongareygu waana ku wuxuu dhici doonaa marka cuduradan ay ma garatay de albaabada dadka loo furo dhaqdhaqaaq imika lama sameyn karo covid-19 kiiba shir lama qaban karo waa adiga ogo 10 qof meel in isku timaado lama ogola kongareyna waad garanaysaa inta umada imanaysa bulshada imanaysa anagu waxa ku tali jirnaa de marka la qaadaba bil dabadeed hadii la yiraahdo inaan marka kongresska qabano xageed ku qabanaysid xagee Djibouti de meel kale ma kalka aadna Djibouti waa tagi doontaa insha Allah hadii la yiraahdo okay maadi waxaan doonayay inaan siyaasadda qof aad ku dayato oo reer Djibouti amba caalamka labadaba ay kala sheeg u jira ii sheeg qofkay ku dayataa qofka waa siyaasi buuxa oran karaysa amba aad oran karaysid ninkan waa idol
amba siyaasadda amba ku cajab gelin siyaasadiisu jabuuti ahaan iyo caalamka labada ay kala sheeg horta waxaan ku day haddii la yidhaahdo wariyadu wakaan lahayd ama siyagaraadkeed raaci lahayd laba nin baan raaci lahaa anugu sidaan waad igu soo koobtay kolleybe ya fikraduhu way badayin oo meelo badan bay ka yimaadeen laakiin anu waxaan aad iyo aad ugu magaratay ula soo shaqeeyey una jeclaaday fikradiisa iyo garaadkiisa wadaninimo sheekho maxamed axmed ciise sheekho oon u ahaa ma garatay gacantiisii midig iyo alla yarxamo iyo muuse axmed idriis oo maha ma garatay mas-uul exemplaira oo mucaarid maantii uu horkacay si fiican uu horkacay si fiican u dejinayey si fiicanna u tartamay wixii haddii laga boobayna laakiin oday buuxa oo waayeela oo ma garatay wadaniya oo ummaddiisa iyo dalkiisaba u naxaya ahaa isna allah u naxariisto labadaa nin baan soo qaadan lahaa example dhantahay maadi wahdi waxaan ku weydiinayay 2 bilood in noqonaysa iminka waxaa jirtay arrin buug oo cali kuba uu qoray arrinta barisaanka ARD axmed aadan cabdu waxa uu dalbaday raaligelin iyuu dalbaday raaligelintii ma hesheen ayaa laga dalbaday raaligelinta waxaan su'aal fiican waxaa buugga cali kuba ayaa qoray daaf baana waraysi uu bixinayey ku komonteeyey oo ku sheegay qayb uu ka qoray kolka qaybtii uu ka qoray daafsi buu u macneeyey fikirkiisana uu ku saleeyey laakiin axmed aadan cabdu yaa ka daba qaato arrintaasaa nooma cuntamine raaligelin inuu daaf bixiyo iyaan rabnaa buu yidhaahayd kolka raaligelintii mayni soo gaadhay ururkaad sheegaysaa urur ahaan baad sheegaysaa anugu war ma hayo warkaa ma hayo may weli ma hayo waayo daahir si kale uu isku macneeyey isagu waxaan ujeedadiidu sidaa ma ahayn soo maad garan cali kubana laftigiisu waxaanu qoray horta wax saxaba ma ahayn oo alla yarxamo markuu noolaaban anu weydiiyey axmed diini su'aalo buuggaa ka weydiiyey wuxuu yidhi inanku buugga iga qaaday habase ahaatee intuu wixii siduu doonu u qortay buu yidhi soo maad garan in loo jawaabo laga daba tegana faa'iide male hadduu wax kaga helaya kaga hele buu yidhi ilaahay baan ku halleeyey marka waxa weeyaan ujeedo annaga horta daafnimo soo gaadhsin wax ma garatay saamaxa dee waa nin siyaasi ah isagaa miisaaniyadda saaraya ma garatay sida arrimaha u dhigay dhibaatada ay leedahay iyo wanaagga ay u leedahay taa isagaa garanaya waxaas uga hadlayna anu ma garanayo ama si uu ku macneeyey buug looma baahnayn waqtiyo siyaasaddu iska adag tahay habase haatee dee waa nin mas-uul urura waana saaxiibkay isaga u taalada ujeedadiisa isagaa sheegi kare laakiin anu ma garanayo okay dhanta ururka ARD doorashada soo socota may ka qayb geli doonaan haddii doorasha ay dhacdaba waxaan u malayaa kolley wararka waad la socotaa maca bishan 13keygii waa tii ma garatay meeting lagu qabtay siyaas principalka iyaga xurintayada annagu waxaan nidhi no osenkia manda waan iscadaynay afka baresidaanku uu ku sheegay aadan cabduhu anna waan kugu celinayaa annagu waxaan leenahay ninkan yurub baan leenahay iska teg no osenkia manda kama qayb galayna ka dhiganta okay maxaad ku diidaysiin no osenkia manda mashruudaad ku xidhaysiin waxa weeyaan horta dee waabuu allah yarxamu aadan roob la yidhi hadday dowladda ummadda shiinuhu hadday ismaaciil cumar doorasho la dhigtaan ya kolley wuu ka helayaa buu yidhi markaa nin ma garatay sanduuqa sida loo xala xariif ku ah oo wax kaleba uqumun oo ilaa maanta isqarqarinayo ummadda doon inuu been u sheego le wallaahi baan ka fikiri doonaaye maba garan inaan ka qayb geli doono hadda isagoo si cad aanan ugu sheegayn jariidada journaalka faransiiska uu qoray ma garatay jean afrique francois soudan waxaan ku leeyahay doorasho aanan cadaalad ahayn anoo kama qayb galayno taas waa mid meesha dalka meydkiibaa dadkii dhintay baa footeeya dadkii dhoofay baa footeeya inta aad ma garatay iyadoo weliba intaasi jirto
ayuu haddana ku shubtaayoo dadkii ilaa ay noolaxo ma garatay codkoodii xadaya marka maxaa sababtay laga qayb gali kari marka manque de transparence baa jirta meesha vote maaha faira maaha marka anagu ma maleeyo in ma garatay nin kasta u kasta uu noqdaba ina ka heli karo ismaaciil cumar siday tahayba iyo taliska RBB ama UMP marka wax la isku daaliye maaha seenkee mandaa haddii laga hortegayana annagu waxaan u yeedhaynaa mucaaradoo dhan iyo bulshadoo dhan oon leenahay walaalayo gacmaha isqabsanno sida adduunka kale hanu kacno hanu ka hortagno dilmaaniyar pacific inagoona waxba jajabin inagoona buuq samayn inagoona dagaal caasimadeenna gubin laakiin waan diidnay waan ku diidnay naga teg si cad oonan la gaban saabaan u arkaa noosankii mandaaga waayahay hadduu seenigii wixii aad hore u dalbateen hadalladii hore wadhaa seenigii waa nii wixii aad doonayseen waa nii dhammaynayaa tartanka ma laga yaabaa inaad bedishay mowqifkiina horta bal xisaabi waxaad xisaabisaa waktigan la lahaa seynii waxaad doonaynaa cadaalad ku shaqaysa waxay 2013 imsaa ka soo wareegtay bani waxaad u malaysaa intii dabadeed waxaa dhacday doorashooyin baarlamaniyaa dhacay doorashooyin degmooyin baa dhacay waxa weeyaan markaa bandhinkaabaad u malaynaysaa inuu ma garatay garaad iminka soo yeeshay uu soo celin karo uu seynii baan maanta samaynaya koran iyaa ka aqbalaya imise nabadood buu seexay uu haddana dafiray uu waxba ka soo qaadi waayey maalintii ay 2013 yidhaaheen USNtu waar baarlaman gaaraan samaysano belbelo fadhiista ee ay dhacday ma garatay isku dhacay in yar ka hadhay iyaa waa kii yidhi nabadaan saxeexay walaalaha nabad baan doortay kaalaan wada fadhiisanay walaalo fadhiistay de laba shay bay ahaydba seeniga iyo statut parti politique xuquuqaha parti politique dalka ku leeyahay oppositionkihi soomaad garan inuu mudaharaadi karo inuu baartiyahan jiri karo inuu xidhmo furan karo inuu raadiyo furan karo waxay oo dhan waa kii yidhi laba komishan manni sameeyo baarlamanka lagaga hadlay maalintii markii saxiixii lagu dhuftay dabeeta lama soo qaadin doorkii dambena waa kii bedelay wax la wixii mucaarad ahaa ee ku jiray baarlamanka marka lama aaminayo walaa seeni laanteed waxa weeyaan meeshan waxay u baahatay gouvernement de transition ninkana ilaa uu tago cadaalad ma garta cadaalad lama dhisi karo dalka waa fahmay maadi waxaan jecelahay inaan fikir aan kaa waraysto waad aragtaa haddayd siyaasadda gelin baad kusoo jirteen adigu daaha maarata lixdeemiyey haddaad afiya ka badnaynba waa tahay new dhalinyar cusub maxaad xisbiyada ugu soo dari laadin waa xisbiyada mucaaradka oo dhan sidaa ardaygo kale maxaad ugu soo dari laadin dhalinyaro cusub oo loo arki layahay dad 30 jira dhowr 30 oo secretary general loo dhiibo inkuna xagga dambe aad ugu fadhidiinba oo xagga dambe ugu jirtiin laakiin iyagu sawir cusub si loo tuso maaragtay rejiimkan guuleed inay geelay socon la inay ninkaas tustiin in wax isbedeli karaan oo dhalinyarta dhig cusub soo gelinadin horta waruno waa ku soo raagnay oo 30 sano iyo wax ka badan oo ka dagaalamayay cadaalad darrada iyo dhibaatada dalka taala laakiin dhalinyaro way jirtaa anu been kuma sheegayo committee executive-kayga dhalintan laga badan baa naka inteeda sare dhalinta ayaa ka badan committee executive-kale ku jiraan bar baa ka macallimiina oo ma garatay ilaa 45 kunto jira ayaa maanta ma garatay ururka ku jira oo ka ma garatay meelooyinkii u weynaa kuwan maamula ma garatay commission centralka conseil nationalka iyo committee executive-ka ku jiraan dhalinyaro iyo dumarba waxa weeyaan se maxaa loo u muuqan lahayn haday tahay waxa weeyaan de siyaasadii baa keentay marka baartii laga hadlayo ama lala hadlayo in ma garatay dadkii mas'uula lala hadlo ma garatay dadkii mas'uula waa dadkii sii joogay annagaaba jecel apprentissage inay qaataan oo maanta haddii ay de activism ay noqdaan activismga maanta haddaad aragto oo u fiirsado inta dibadda joogto mooyaane
wax dhalinyaro activisti Djibouti maad ku aragto wali dhalinyara ma aanu ma maleeyo ina aad uma arkin intooda badan soomaad garan waxa weeyaan rag sii joogoon ama urur bay ku jiraan oo daba joogaan rag ama si laakiin wax activist sax ah oo ma garatay partiyo ma garatay halkaas odayaasha hadalka anan ka qaado hadla way yar yihiin riskiguna wuu badan yahay halkaas waad ka ogtahayna dhibaatooyinka badan baa jira nin walbana dhalinyaradu nin nolosha iminka bilaabay fartaa lagu fiiqeeyaa mustaqbalkaaga maaha siyaasaddu gelin ama waalidkiibaa leh ama xaaskiisaa leh ama tolkiibaa leh ama boqol waxbaa leh markaa taasina dhibaatooyinkaasina way iska jiraan oo meel la madax bannaan iyo dimuqraadiyad dhaba maaha uu ninka dhallinyarada intuu capable noqdo uu qalinka qaadanayo ama mikrofoonka qaadanayo ama wareegi karaya magaalada Djibouti uu bulshada kicin karaya daadiisa oo ma garatay uu horkici karo fakteero badan baa jira oo maaragtay caynkaas oo qabanaya ninkii dhallinyarada ee shabaabka ahaa ee maanta itaalkiisu buuxay iyo garaadkiisuba waa dhibaatooyinka diktaatoradu ay keenaan maadi dad way jiraan dad activist oo Tehranka jooga oo Djibouti jooga oo naftoodii xitaa huray oo danahoogii ma hadana kala u hadla oo xarig iyo dhibaato iyo shaqo keeriyo way jiraan kuwa maadi way jiraan kumani ma jiraan way jiraan laakiin ma ku cuntobayaan intaa yare la qaqabanay waa ku dhowr uma la qaqabtaa oo la garanayo inuu ma garatay ka dhalinyarada daadiisa ee ma kala qabanay activistka yare la magatay la cadaadinay jeelka gabadh la geynayo ama isdeestu qaadaysa dhowr magaalada laga waayo dhowr cisho waxa weeyaan inay garab galaan weeyaan generationkoogii weeyaan inay garab joogsadaan weeyaan mabdiisa qaataan weeyaan iyagaan muxuu dagaalamayna anagu iyagaan inuu dagaalamayni dalna waanu dagaalamayni bulshada waanu dagaalamayni ummadna waanu dagaalamayni in sidaa ay yeelaan maanta waxa weeyaan dhalinyaradu markaad ummadda la xisaabiyo ma garatay waxa weeyaan kuwa 30 jir ka yaray waxa weeyaan ilaa 5% so waxa weeyaan 5% kaasi maanta haddii ma garatay Allah ka yeelay 40 uu la heli lahaa 40% waxaan u maleeyaa ma garatay isbedel wiiban lahaa annagana ma garatay way la caawin lahayd iyagana way gaari lahayd guul annaguna uga harnaa markaa meesha way fiicnaan lahayd in haddii la heli lahaa yaan la tahay anaka dad dhalinyara oo meesha naga muuqda oo inaan kuwa isbedelkaa tusin Ismaaciil Cumar waxaan su'aal baan ku waxa weeye Mahdi maanta taariikhdu waa 21 bisha November haddii la ina Cumar maanta ina Cumar way ka baxday nafta haddii la ninka waddankiisa ka qaatay way ka baxday haddii la yaad oran lahayd xisbi ahaan amba qofkee yaa oran kartaa reer Djibouti maanta ninkaaba isku keeni karaya oo dhabar u leh yaa oran lahayd isku dar xisbiyadiina siyaasiyiintiina yaa oran lahayd mid amba laba sheeg horta waxa weeyaan su'aal ma garatay irrealist aanu maleeyaa ma garatay aniga lama aha ma dhacayso nin ma wado wax dad rag baa wax wada iyo dumar soomaad garan haddii ma garatay dhibaatadaasi timaado waxa weeyaan dadka dalka u joogay u soo dagaalamay inay madaxa isgeliyaan weeyaan marka iyaga isku kalsoonaan kara oo isku dhiibi kara marka ay doodaan iyo odhan kara war hebel baa ku habboon ama hebel ayaa ku habboon wax ma garatay iyaa loo dhiibi lahaa ma waa wax rag ka go'aya shir ka go'aya dood ka go'aya weeyaan waxaan kaaga waayo mas-uuliyad weyn baa loo dhiibayaa mas-uuliyaddaasina tu bilaash la isugu dhiiba maaha tii gobonnimadii way ka soo gudubtay ee xasan guuleeda wada aabba noo noqonayna hor soco waxaa maanta ka dhacay waa la arkayaa soomaad garan waxa ka dambeeyana waa la arkayaa marka waxa weeyaan waa la isku iman bulshada loo yeedhay ummadda loo yeedhay mas-uuliyiinta loo yeedhay waxa la odhan ayaa maanta ina wadi kara muddaduna wadi maxaa isbeddel intaa dhacaya meesha markaa dabadeeta albaabada laga furo dadka la yiraahdo waa kaade intaa waa soo wadnay dhibaatadaas baa dhacday hebel baa ina soo waday ama hebel ayaa ina soo waday intaa ina soo wadayna waxaaba la diyaarinay waa taa doorasho cadaalada oo madax bannaan maanta way nii furan tahay
intaaba tartamaysa cidda doonto ka dhex doonta voilà c'est ça la démocratie waxaa siyaasaddii jabuuti ka muuqata inuu dadkii mucaaradka inuu ninba nin la socon ninba isu socdo oo isaga waxaan ku weydiinayo maaragtay su-aasha de waa taa kaaga jawaabaya anaa kuley war waa in la isku yimaada inta meel nin ka tegey meel maran meelana waxba oolin hadduu ninku ka baxo dhibaatadeeda sii soomaaliya soo maad garan cali mahdi baad noqoni caydiid baad noqoni kuwo kaloo degmooyin goostaad noqoni sidaabay noqon doontaa soo garan maysid marka lama baana waxaa loo baahanya aan preparation lasii sameeyo aan gouvernement de transition imika lasii dhigo wax laysku ogaado oy société civilka sida adiga ila hadlaya iyo inamada kale telefisiyonada ay dhimeeya syndicalisiyadu associationada madaxa bannaan leh soo maad garan iyo personality politicada madaxa bannaan inay ma garatay meel iskugu yimaado oo laga wada hadlo qoraal la kala dhigto oo la yidhaahdo war hadday berri toole taasi timaado dowladdiyaa ku meelgaadhka waa inay diyaar noo ahaato programkeediina uu diyaar ahaado muddada ay joogayaanna diyaar ahaato waa taa ujeedadu marka nin kastaba way ku xidhan tahay inigana noqotaye inaad kicisaan oo tidhahdaan war mucaaradow nasooda hor fadhiisto ala ku dooda mas-uuliyiintiinana halka dhiga wixii aad noo wadaana noo sheega wax laga gabada maaha dalka waa la wada leeyahay waxaan wedhan tahay mahdi iminka saynkee maandaawo yaa dadka soo wajahaya ininku mucaarad ahaan maxaa dadka u haysiin anagu isbedel waanu haynaa hadday ummaddu isbedel u baahantay isbedel waanu haynaa hadday doonayaan raggii meesha bedelay waana kale gouvernement transitionka anagu qoraalkii wax walba waan diyaaranay waa la fadhiisadku imika waxaa hor joogsaday uun covid 19 kaaba hor joogsaday cudurka adduunka albaabada laga wada xidhay ayaan hor joogsaday laakiin waa horaa la fadhiisan lahaaba qoraalkii waa diyaar inaan dadkii isugu yeedhno yaan diyaaranay ahayd in ma garatay waxa la yidhaahdo ma garatay personalité politique tous les partis politiques ONG-yada iniga telefisiyooyadii raadiyooyada ma garatay liberka waxaasoo dhan inay ka soo wada qayb galaan dhalinyarada association estudiantinka association de famille hadday jiraan soo ma garan oona kuwa dowladda ku xidhan aan ahayn kuwa dowladda anigu ma tirinayo kuwa ummaddu samaysataan sheegaya ee madax bannaan in ma garatay laisku yimaaday ahayd taa dabadeeto laga daba qaado la yidhaahdo ma garatay war waa ka annaga programkayga politiki in cumar haddii sankee mandaagan sabaa laga hortegi karaa iyadoo diyaar la yahay laakiin adigoo faramaran yaan wax bedeli dee ma soconayso anaa kuu sheegayaba waayo meesha dalku burbur buu ku dhow yahay qabyaalad buu ninkani dhex geliyey dilmi iyo dhagar baa ka dhici ilaahay naga dheereeyo namana bada ilaahay laakiin waxa weeya loo programay lahaa waa la fadhiisan waa la wada hadli gouvernement transition baa la diyaarin qoraalkeediiyo ku dhan waan haynaa anu guddida qoraysaan ka mid ahay soo maad garan markaa waxaabaa laynaso wada hordhigi oo la leeyahy waa kaasa muxuu wadayno clarification net oo transparence musuqmaasuqiina cumar ku lamida maaha uu ka duwan yahay aad buu inoogu duwan yahay taa u dambeeyo waxaan mahdi ummaddu hadday doonaysa baa tiri ummaddu way doonaysaa oo ininkaa ka maraga oo berigii aad iyeesaan waxayseen sida iniigu soo kaceen sida nii soo garab istaageen sida niigu vooteyeen niigu codeeyeen waa loogyahay ilaa intii ilaa waa hore dadka shaqa yaa laga eriyaa shaqada jabuuti shaqa xumi iyo waxbaa dayacay laga meeriyey fikir siyaasadeed baad qaadatay yaa laga eriyaa dad baa dilay oo ku maqan oo maanta dhulka hooshiisa lagu xabaalay dad kale ayaa toortiir dad baa la dhibaateeyey dadku shicibku way ni garab joogsadeen oo shicibku hadday doonayaan maaha shicibku way rabaan wayna doonayaan way ni garab joogsadeen marnaba kolkaa shicibka anagu sida taa miyaan ka qanacsanayn ibrahim madi waa run waxa waa la yidhi ma garatay carabtu waxay tidahdaa ya ama soomaalidu way ku mahamaahaan ma garatay nin durmaan qaatay ilaaq dalbey baa la idhaha soo maaha talis criminal yaa meesha haysta marka ninka hadlaba cagta hoostiisuu geliyaa wuu dilaa anu waan soo maray dhowr jeer baan soo maray dilmo waan soo maray gabood waan soo maray dhabarkoo layga jabiyo waan soo maray dhakhtar lay dhigo waan soo maray
dhibaato dhaqaale oo loo geliyo waa caruurteedii aniga la geliyo waa soo maray waxa weeyaan bareerka weeyaan waa mowqif marka aad leedahay aad ku socoto ma damqanaysid dhibaato ku dhan arki maysid marka anigu waxaan leeyahay US Center kuwii ku sii jiray kuwii sii socday ee maanta aad leedahay waa la dilaasan waa walaalahayo way noo dagaalamayaan iyagoo ay dagaalamayaan dalkooda u dagaalamayaan intaan dagaalamayna dagaalamayaan dhibaatana way ooli ninku dictatorkaasi joogo ee xuquuqal insaanka uu diidan yahay cid ka hor timaada cod ka hor yimaada wuu layn wuuba laayeyba dadkii siyaarada iska samaysanayay magartay buldhuqo soo ku yaga halkaa siyaaradii iska fadhiya rasaasta ku garaacay waxaad u haystaa talisna xaya inuu yahay kani waa talis inkaar qabaa markaa taasi tu laga calacala maaha ee in hore loo socdo weeyaan sidii US Center dib loogu soo baxay weeyaan oo bulshada ay soo taagto dabadda oo jiraado waan ku diidnay ee naga tag vote ba kama qayb galayno ninka lama dhigana baad iyaa tirahdeen kolkaa imika miyesan dambe inay dadku isku soo awlaan baad ugu baaqaysin may anu yeesan maaha kuma odhan waa yeesan sidii US Center ay ugu soo baxeen baan ku idhi mayna fahamtay waa inay u soo baxaan dee iyaga annagana way naga maqantay iyagana way ka maqan tahay waa ummadda iyadii hormoodan u noqonno laakiin haddana waxa weeyaan bulshada iyaa iskale dagaalkan dal iyo ummad baa lagu badbaadinaya maadi waan fahmay markii votkii yeesantii hawshiinni waad qabateen shicibkuna uu qabteen wax naga itaaroon yaani hele ma la odhan karaa maadi ha waxa naga itaarooni waxa weeyaan iyadoo cishadiiba anaa ku tusaya waxa naga itaarooni waxa weeyaan cishadii markii doorashadii laga soo baxayba waa adiga og inuu magaratay dadkii halkaa buldhuqayntu ku laayay madaxdii US Centerna aqalkii jaamaca marre intuu tagay la yarxamo bugta ka saaray uu raggii mas'uuliintii barqa qabtay uu jeelka geeyey uu presidentki US Center dhabarka lugta ka jabay shashada oo la geeyey dhakhtarka waad og tahay dhibaatadii ka dhacday yes waxa maaha dowlad civil oo dimuqraadi maaha Jabuuti waa dowlad militaire sanita militarisée waa dowlad xukun military ku haysata meesha askartiisii booliiskiisii armeegiisii gendarmerigiisii iyo SDSTC waa repression had iyo jeer taagan ka balbala gala iyo ku guud gala iyo ku kaartiye hoose gala ama asiga ku cali sabiix degan halkaa uu mudaharada la dhaw komisarku soo qabto uu kala Jabuuti tajoora saasillag oo waqsaasillag marka waxa weeyaan waa in ma garatay horta ay dadka ka dhaadhacdo inayna ma garatay xukun military meesha haysto in la iska celiyaa maadi kolley dowladaha shisheeyaha way og yihiin tacadiga Jabuuti ka dhaca ee say wax u dhacaan miyaan la hadlin oo la xiirin maxay jawaabtiin ka heshaan waa la hadalnaa anagu ku walba waan la hadalnay Mareykan noqotay Faransiis noqotay European noqotay waxa weeyaan de waxay ku soo kooban tahay ninka tiisa daryeela ayaa tu kale ku dara soo garan maysid kuma qalle weeyi laakiin aw umadiini kacaysi umad cabanaysa ma narkayna waa umad la leeyahay marka jiraado de hadii la leeynayo la leyn maayo ka daba kaco kiciyo umada anagu diyaar baan inahay ina Umar hadii uu dadka rasaaseeyo waanu ka hortagaynaa waan raacaynaa laakiin umada horta ka cadalay that's the solution waan fahmay ininka haddana waajibkiina ma ahayn kolkaad aragtay adduunka xitaa adduunkii maaragtay in waxba nii qabanayn in dhibaatada dadka lagu hayo inaad taliska nigu adkaaday miyaan mas-uuliyaddiina mayna ahayn inaad dadka u soo laabantiin aad biilaaga wixii dhacay aad siiseen aad uga warrantiin oo taa meeshaa baan tagnay adduunka wax baan ku soo weynay walaalaha reer Jabuuti oo annagu aan isku tashanay inaad dadka u laabantiin mayna ahayn wallahi qoraal iyo hadal boolaalkay waan ku sheegnay qoraal iyo hadalba waanu contradiyo ku sameeyay jariidada halkan ma garatay imkada contradiyo lagu sameeyay website-yada ya emailada lagu qoraa soo maxaa ku dhahaa Facebook-yada waa la soo geliyaa turneegii u dambeysay anagu soo marnay waa Europe way ku soo galiyay Facebook-ga ma garatay waxa soo dhan way ku jiraan
wixii daan aragnay ama ha noqdo ministre d'affaires étrangères belge ama ha noqdo commission européenka ama ha noqoto directeur de cabinet-ga magarata affaires étrangères faransiiska waxaasoo dhukun waa qornaa waa soo saarnaa inay dadka garab martiyeen kalena ma garanayo laakiin way jiraan wax alla wixii raan contre officiel waa qornaa contre rendu baan siinaa waan ka wargelinaa intii jabuuti joogtana intay akhristeen un maahee intii war aan u tabinee guddidiyo isku tabiso dee way bulshadooda way ka wargeliyaan dee inta baartiga ku jirta xudunooyay u tagaan waxaa hawshaa baan qabannay maanta waxaabaan soo samaynay sidaabaan wax u wadnaa way jirtaa inaadan waa wax jira oo xaqiiqa waxa weeyaan dee maxaa iminka markaad akhrisato jariida in cumar wuxuu ku leeyahay haddii la samayn lahaa radio libre iyo press libre qaali bay noqonaysaa buu kuleeyahay ma isagaa bixinaya lacagta codkii buu afka hayaayo uu ku leeyahay qaali weeyaan anagu ma fasixi karno waxan lacag ba uma hayno lacagna wuu buuxaa marka halkeed ka gaadhsiin dadka ummadda intaanan akhrisan xageed wax ka gaadhsiin waxba kama gaadhsiin kartid dee warkaa imkaad duubaysay intaasi maqlayaano aad u dhegaysanayaan aad uga dhargayaan in isweydiinayno ya laakiin wixii qoraalun baan ku soo saarnaa wax dee sameecaddaa gaadhsiin lahaa afka dadkeennu intooda badan waa oraal ma jirto inaadan waa taa weyn xaqiiqadu igu soo laaban qorshahaad iminka aad diyaariseen adigu aad qortay mahdi iminka aad dadka aad u soo bandhigi doontiin taa muxuu yahay macna dheeraad naga sii macnaha waana ku sheegay waxa weeyaan maamul dhan oo dowladeed weeyaan isbeddelka waxa loo baahan yahay dastuurka wixii laga taadin lahaa sidii dastuur saxa looga dhigi lahaa oona nin ma garatay koodh nin quro ku qiyaasan una u noqon sidii loo kala saari lahaa awoodaha ma garatay maamulka dalka ama ha noqotay dowlad ama ha noqoto maxkamad xuquuqihii ma garatay bini'aadmiga ilaalinaysa ama ha noqoto ma garatay baarlaman nin walba wuxuu leeyahay shaqo gaara inuuna ilaaliyo weeyaan dimuqraadiyadda dalka xubin walba oo ma garatay saddexdaa ka mid ihi waa inay ilaaliyaan ta kale waxaa jirta reform institutionnel dalkan in hab dib loo wada habeeyo maamulka dowladeed ee meesha yaalla nin kastoo directeur isuu doono inuu yeeli kara maaha intuu saacadu doono maqnaan kara maaha lacagtuu doono iska shaban kara maaha meelo uu dhistay walaashii ku qori kara maaha ama hooyadii ku qori kara maaha ama ilmo aanan u shaqayn uu ku qori kara maaha waxyaalo badan oo caynkaasaa ku wada jira meesha dhismaha degmooyinkaa ku jira oy ka mid yihiin waxaa ka mid a qaybo dowladda oo la wareejin karo oo lagu wareejinayo degmooyinka aanan dhaqaale haysan oo jaamacada ka mid yihiin dhakhtarrada fiicani ka mid yihiin ma garatay program ekonomiyo gaara oo degmooyinkaasa oo opportunitygooga ma garatay lagala hadlayo raalliha waan kaa dhex gala mahdi yaa wada yaad isla wadiin group dhan oo mucaarad ururiyo iyo personality politique baan soo wadnaa iyo mutacalimiin specialista dibadda ka socotaa labadaba way ka socotaa kolkaa waan isku xidhantihiin oo wada shaqaysiin waan isku xidhannahay waan sheer garaynaa shaqada waa la isweydaarsadaa ha kolka weli magac maad u saarteen hadhow waxaad dad moo dhegeysiin urur ahaan may magac maaha magac looma saarayo waayo waxaan loogu saarayn waana kudhi marka la isku wada yimaado ma garatay invitationada la sameeyo waxa la wixii ka madax bannaan dowladda jabuuti ayaa ma garatay halkaa laga hadlayaa magac saaridba ma waxa weeyaan program dhanoo economic politique social constitutionnel institutionnel somaad garan santé education waxaas ku wada jiraan weeyaan maaha waa hawl dowladeed oo dhan ururada mucaaradka oo dhan ma u dhan yihiin barhkood bay ku jiraan uma badhigin kuwa maqan uma tegin way iska ogyihiin de nin walba waa xor ururkii doonaya haddii uu kusoo biiro uu kusoo biiri karaa ha why not yaa u diidan okay kolka aad u sheegteen maxay ku saleeyeen inay niga soo qayb geli waayaan iyaga wallaahi arrinkaas u yaallaa dad nin kasta waa mas-uul waa loo sheegay waxaabaa la soo wadaa programka baa la soo wadaa marka intii ka soo jawaabtay waa lala shaqayn kari intii aana ka soo jawaabin dee qasab kuma aha wuu madax bannaan yahay bilo program gaara iska watay qofku allaa yaclam waxaan mahdi waxaad ii sheegtaa
quwaddii iyo senta oo kale ay waxaysay see loo waxayn karaa mar dambe oo la suu kani karaa wallahi niyo dadku inay waxilowsan yihiin baan u maleeyaa waxa weeyaan ismaaciil cumar min maalintii doorashada ugu horreysay uu soo dhigtay inay dadku ilowsan yihiin baan u maleeyaa laakiin muuse axmed idris uu ka helay doorashada ina waa iska wada ogyahay magaalada joogta ummadduna waa soo wada baxday bulshaduna soomaad garan caradii uu qaaday waa kii markii dambe xidhay cabsidii uu ka qaaday oo bulshadu kuu kicin yidhi ummaddu kuu kicin waa kii xidhay ee gurigiisa loo daatay askartu u daadatay bulshadu markaa diyaarun bay eedan ahayd sidaa 2013 2003 doorashadii baarlamanka axmed diini uu hogaaminayay magaalada jabuuti taasina waa laga helay isna waad ogtoo ilaa union europeanka yimiday oo yidhi waa dadkan waxaad sheegaysaa inay kaa heleen baa la sheegayaa adna waxaad leedahay boqolkiiba 4 iyo 740 bay heleene sidee boqolkiiba 740 waa nus dalka marka la kala gooyo bay dhahayn ummad bulshada ciddii codaysay ما تيجي تكون أصلا يقل مين ما يبودوا waa system majoritaire أنتم وحنا إنه ما بحنانه سيدي ما يكون عادي ده مين تريسكي سيدي بيعطانا هيد ده أفضل بوكو قاتي كتربا بورصة ده البوبيلاسيون واحد فوتة سي يو اس ان وأكيد سيدي لسكول دقيقة وقول دقيقة تيالر تيجاري لا يدي واي فا بورصة يو اس ان تاينو قاتي marka waxa ku leeyahay rapport de force ka ba jira military oo xooga oo dagaal laba midun weeyade ama waa dagaal oo dalka dhibaato geeya galiya gaar ahaan caasimada ya ama sida waxa weeyaan haduu garaad isagu leeyahay waa intuu dalka kaga tagi lahaa burbursiisiyad bare inuu ma garatay iskaga tago oo la doorashada mar ku soo noqon oo waxay halka la dhig iska dhigo umada siiyo aan taamanarka bulshadu way midoobi towtar way midoodaa bulshadu maaha wax ma garatay bila garaada maaha isagu nin garaad la maaha xagga wasaan arkayo ninka kursi ku dhajisan ee ummadana leynaya nin walba cadaadinaya wala islaan noqotay wala cajuus noqotay wala inan noqotay wala gabadh noqotay inuu sii joogo kuma haboonee hadduu garaad leeyahay waa garaad laa waan u maleeyahay ha iskaga taga meesha bulshaduna way midoobi doontaa towtar waa ku soconaa insha Allah waan midaynaa waxa 99 Ismaaciil Umar wuxuu yiri mucaaradka isagoo tilmaamay wuxuu yiri waxa isku guultageen nin intooda mid ogol maray waxa isku guultageen si dawladdeena u dumiyaan hadalkii uu ku celiyay interview ugu dambeeyay toddobaadkan oo wuxuu yiri xisbiyada mucaaradka rag buu magacaabo yiri intooda mid ogol maray aniga amba maaragtay amba wadanku xaggayga waxay ma socoto arintay waxa uu sheegayo wali hadda sidii baa ogtahay ilaa bariga 22 sano ka sokaysa maanta waxa uu sheegay run lama oran karayo may run ma aha horta isaga dhinac kama wada jeedaan raggan anaga dhinac ka wada jeedna oo mucaarada anaga yaa dhinac ka wada jeedna oo mucaarada anaguna nagu wada cadow yahay waana garanaa anagu intaan isku jirno samaad garan intaan isku jirno waan ognahay objective kuma kala duwanin ma haday tahay may wada fadhiisan wariyo waxba may wada dhigan meel ya way wada dhiganayaan degdeginde adi adeerkaaba ku dhiibay waa la jawaabtu way adi adeerkaaba ku siiyay iya kula tashaday iya la tashatay adeerkaaba kursiga ku siiyo ku ficiltamay ya mareer jubta ku dhiibtay looba dhiibantay muxuu ka sheegay ragga kale oo maanta had kala leeyo ragga way soo saareen siyaasadan soo xawska soo saaray kaalo adeerkiisii way dalka iyo umaduba وتاوي الجواب تيسو وأنقرا بلا أبال اوكي ما oran kartaa Ismaaciil Umar waxa meesha ku sii haynaysa waa isku duubnin la'aanta mucaaradka haysata iyo isfahanka ma la oran karaa may waa kugu celinayaa haddana mar saddexaad waa ninkan adeerkii uma gacanta kaga dhigay ciidan baa u haya dalka ciidan baa u haya waa ka islaanta dilaya inanka dilaya odayga dilaya ku baadiye jooga dilaya ku magaalo jooga dilaya marka ma ahin mucaaradka kala jaba uu meesha ku joogaa sababta ayaa la doondoonin waar dictator weeyaan hubaysan oo bulsho burcada
haddii la iska celin waayo la kici waayo oo bulshadu kici weydo kuma tegayo siyaad barro sidaabuu ku tegey ma garatay mangisto xayla maryan sidaabuu ku tegey dowladahan kale ma garatay xusni mubaarak sidaabuu ku tegey sidaabaa loo baahan yahay rag iska dhaba kii algeria sidaabuu ku tegey sidaabaa loo baahan yahay kii kale burkina faso sidaabuu ku tegey markaa kugu talin kari maayo sida loo baahan yahay waa sidaa si kale ma jirto ninna ku siin maayo kaado in cumar baad filaysaa in odhanayo anu mucaaradka meesha igu sii hayay anu waa iskaga tegi lahaa mar hore hadday israa'iil yihiin haddaan beri isku nimaadna ma ka tegaya isagu annagoo wada joogna hadduu arko waa beenaale xaqna uma lahayn inuu qaato meesha adeerkiyaas adeed gabagabaan yaan kusoo dhownahay waxaan doonayay iminka siyaasaddu waa laynigu soo biiray xisbiyadii siyaasadda waa lagu soo biiray societe civilki baa kusoo biirtay adna waad ii sheegay way nila shaqeeyaan societe civilku kolka diyaar ma u tihiin xisbi ahaan inaad haddee tole isdhex geshin societe civilka iyo xisbiyada absolument objectiveka ma garata laga doonayaba gouvernement de transition waa taa weeyaan societe civilku mas-uuliyaddeeda ha qaadato hadday independent tahay ma societe civil dowladda socota oo isugu timaada dalladda ma garata renaad leedahay dowladdu xamaamusho taa lama baahna waxaa loo baahan yahay societe civil madax bannaan oo totalement independent taasi weeyaan ta annaga nala shaqaynaysa nalana shaqaysa ana rajaynayno inaan isku shubno oo ku mid noqdaan dowladda haddii ilaahay yidhaahdo la dhisi doono markuu ninkan ma garatay laga qaado meesha maamuli doonta kolka ii caddeeyo conseil national transitionkan yurub ka jira ee la hadalhayabaa iyo shirar ka dhici doona brixel mataaba misooto kale magacahaan way isku dhow yihiin objectiveka way kala duwan yihiin anu dee waxaana la sheegayo waan maqlaa rag baa wax wadwada laakiin anu taa kuu sheegaya waa tu mucaaradkii ma garatay dhabta ahaa iyo societe civilkii aan la shaqayni jirnay iyaa nala shaqeeya oo min jabuuti ilaa halkana okay inkoo dadka jamcinaya kaba soo qaad ta adu aad ii sheegayso tan kale konseyga nimadan doctor fuadiya ay sheegaan wadahadallada ku jira iyakuna iyakana gacanta ma u fadhiisan inkoo dadka isku geynaya bal haddana anagu diyaar baan u nahay haddii ma garata iyagu waxaanay wadaan anagu wax sanadaan ka soo shaqaynay weeyaan oo ka darsaynay ilaa ma garatay arinkii 2013kii dabadeed aan ka shiri jirnay iminkana waxa weeyaan ahlan wasahlan weeyaan waxayna wadaan waan maqlay laakiin waxba ma arag for now ilaa hadda soo mad garan waxa weeyaan dayna ma garatay wixii ay way leemanayaan ma meel kale tagayaan soo reer Djibouti lama wada aha soo dal meel loo wada jeedo waa la isku iman karo leeyahay qasab okay weedantahay mahdi su'aashii ugu dambeysay ayaan jecelahay maxaad fariin u diri lahayd reer Djibouti guud ahaan gaar ahaan kuwa maaragtay Djibouti dhexdeeda ka halgamaya sida gabdhaha iminka oo maaragtay aad garanaysa magacooda badan maqashay iyo kuwii kale magacooda wada garanaya adeeqa ma garatay ubal khayr waa wada garanaya sax dadka sidaa oo kale halganka ugu jira iyaku maaragtay barkhadgood baa jira dad baa jira teeraanka sidaa u jooga iyaku oo halgamaya dadka maxaad odhan reer Djibouti guud ahaan maxaad odhan waxa ku maqlaya maanta ee dibadda xitaa kuwa joogana laftiyoogana maxaad qorshaha aad sheegaysid maxaad ugu jeedinaysaa iyakana u diraysaa message dhambal waa laba shay waxa weeyaan reer Djibouti oohin iyo baroor iyo jab wuu dhammaaday waa dhammaysateen anu inagu soo celcelinmaayo kelmadaha ma garatay dhakhtar ma jiri iyo iskuul ma jiri iyo caafimaad ma jiri iyo biyo ma jiri iyo kooraan ma jiro waxaasoo ku dhan waa la iska ogyahay sannaday socdeen oo inay jirinba waxani waxa weeyaan maanta in ma garatay 5 sano uu doonayo ku soo noqdo ilaahay nimo hor keene iska celiya kaca midooba isku taga Soomaaliga waxa loo baahan yahay sida ummadaha kale u dhaqaaqeen iminka tarinaya dawladaha kale dantiina ku wada dhaqaaqa gacmaha is wada qabsada ha isku fiirsanina wada kaca horta magaalada Djibouti waxa jooga ama siyad degmo ha joogo ama caasimada joogo taas waa fariinteeda ugu weyn way dhici kartaa in askar niga hor keeno
laakiin waxa weeyaan intaad meel ku wada inagoo meel ku wada dhintaa roon dantii noo wada dhintaa roon oo is wada raaca ninkan wuu iska tegey yurba dhaha mar qura taasi waa taa ta waxaan sheegayaa kuwa dibadda jooga dee alxamdulilah waad ka badbaadeen taliska iyo dhibaatadiisa laakiin garaad inagama maqno caruurtiinuna si fiican bay u cunteeyaan habeenkiina ma garatay nuna nabad baad ku seexataan inaad u magar dabqataan ummaddeena jabuuti joogta eed intaa ma garatay dhibaatadaas ku dhan haysato maantana waqtiga cuduradan sii biireen dhibaatadu ku sii badatay waxaan leeyahay walaalahayow bal ha wada tashanno intii ma garatay nala xidhiidhisana nala xidhiidho intii waxna wada qabanayna programya la samaynayna ha la samayno anu waxaan leeyahay waa in ma garatay ummaddii loo wada gurmado meelaan ka wada jeesano aan wada hadalno oon wada fadhiisanno oon ka doodno haddaan wax ku kala duwannahay laakiin maanta gurmad buu dalkii u baahan yahay ninkan waqtigiisii wuu dhammaystay waa inaan ummadda raacno oo la erino ninkaas weeyaan waad mahadsantihiin waa adaa mudan mahdi su-aasha haystiina ugu dambeysay ahayd waxaan aad iyo aad haddaa sinaan tv tahay aan kaaga mahadcelinaynaa martiqaadka aad naga aqbashay iyo waqtigaan siisay aad baad u mahadsantihiin dadka insha allah adaa mudan walaal mahdi insha allah siyaabo kulno dambena insha allah waxaa dhici karta inaan isla helno martiqaad dambe insha allah waxaan rajaynaya aad noo qabashid marweynida mudane insha allah waxaan leeyahay isaarka dambe isaa waxaa nagu soo xidhnay waa waraysigii maanta aan la lahayn gudoomiye ku-xigeenka ururka ARD mahdi ibraahim good oo rugcaddaa siyaasiya waan odhan kara waa qaamuus oo biblioteek ba xagga siyaasadda oo iraan kusoo bilaabay ilaa maantana wax qora yaan la lahayn insha allah waxaan jecelahay inaad ka faa'iidaysteen su-aalahan weydiinay annagoo dhan kastaba ka egnay wax insha allah waxaan leeyahay isaarka dambe oo xiise leh iyo ammaanaha allah asalaamu calaykum waraxmat ullah